gudoomiyuhu waxa uu geesta kale sheegay inaan loo baahnayn ciidamo hubaysan oo sii jooga buuraleyda shidan ee haatan nabadeynteeda laga wado magaalada Ceergaabo. waxaan ku boorinayaa in ay nabadgelyadooda adkaystaan ciidamada hubaysan ee wali eeriyadii joogan ay kala fogeeyaan kala diraan kala kaxayaan guryahoodii kala qabtaan dadku waayo sabab ay u sii joogaan ciidamo hubaysan meesha ma joogaan haddii ay degdeg u kala kaxayn waayaan waxay la tahay xukuumadda waddanka jirta awood u leh inay kala kaxayso inay qabato inay hubkana ka qaado technica reer haystaana looma baahna arrin aan loo dul qaadan karin bay noqonaysaa insha Allah hase ahaatee xukunka maxkamadda ay dadku isla doorteen baynu ka warsugaynaa guud ahaanna waxaan halkan uga faa'iideysanayaa gobolka meelo badan baa la isku hayaa dadku waxaa loo baahan yahay inay nabadgelyada dhowraan inay qarannimada Soomaaliland dhowraan inay cadaalad ku sugnaadaan inay iska daayaan qabaa'ilkan iyo waxaan hubaysanay markasta ay isu dhoolaadsanaya inay magaha iyo waxay isku leeyihiin si tartiib oo sharciga islaamka waafaqsan ay u kala qaataan maxkamaduna waxay fulin doonaan insha Allah go'aanada ama ka soo baxay maxaan ku raadayay xukuumadda ama maxkamaddu bay soo saartay